iskuduwaha wasaaradda isgaarsiinta iyo teknoolajiyadda ee gobolka Gabiley ayaa sheegay in dib u eegis ay ku sameyn doonaan taawarada ay cabashadu kaga soo noqotay wasaaradooda. iskuduwaha wasaaradda isgaarsiinta iyo teknoolajiyadda ee gobolka Gabiley Mudane Bashiir Muuse Axmed oo sabtida 13 Juun codka bariga Afrika ugu waramay xafiiskiisa ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan iyaga oo raacaya xeerka nidaamka hagaha isgaarsiinta Somaliland ay dib u eegis ku sameyn doonaan guud ahaan taawarada ay kaga timaado cabashadu sidoo hadalkiisa u dhigay isagoo sidoo kalena xusay kormeer uu sheegay inuu ku soo maray taawarada ku yaala deegaanada iyo degmooyinka hoos yimaada gobolka Gabiley sida Wajaale Allay Baday Geed Ballaadh inta dawladeed waa run waxaan ku soo maray safaro kala duwan degmooyinka Wajaale Allay Baday Arabsiyo iyo Geed Ballaadh waxaan xogaan noqosho xagga taawarada oo meelaha qaar dadweynuhu cabasho ay soo gudbiyeen awgeed baan safaro u sameeyay marka insha Allah safarkaas aan sameeyay xogta ku hayso waa warbixintana insha Allah hadii la yiraahdo waxaan gudbin doonaa caasimada xeer lambar 50 oo golaha wakiilada Somaliland saxiyeen iyo xeer nidaamyaha lagu hagayo taawaradu bay sheegayaan in dib u eegis lagu sameyn karo taawarka cabasho badan ka timaado marka insha Allah wixii suuragal ah cabashooyinka taawarada waxaan ka qaban doonaa insha Allah. dhinaca kale iskuduwaha wasaaradda isgaarsiinta iyo teknoolajiyadda gobolka Gabiley ayaa sheegay in ay wasaaradoodu soo saartay wareegtooyin lagu horumarinayo nidaamka shaqada wasaaradda isgaarsiinta isagoo arintaasina uga mahad celiyay wasiirka wasaaraddaasi Mudane Dr. Abdiweli Cabdillaahi Suufi Jibriil. weeyaan imika hagahaas lagu maamulaa haddii xitaa inala soo socodsiin waayaan annaga u tagnaa waan ka joojinaa xeer iyo sharci baa ka yaalay hagal lagu maamulo marka cidii talaabooyinka fulin weyda soo dalban weyda deetana marka buugaas loo eegayo habraac bay leedahay taawarka goobtu ku yaalo ma ku habboon yahay eeriyada guryaha u jirsanayo lafteeda meesha ku jira ka shuruudo badan baan u eegnaa waana fulinaa anagu ka wasaarad ahaan cidii iska dhigatirta marka wasaaradda waxa weeye talaabo sharciga waafaqsan ma qaadnaa system waxa jira ama logistic amba xeerarka kale ay gawaaridu ku shaqeeyaan boosaha balka waran ku maraya arkaas waxa maraya meel wanaagsan xeerkii baa la dhameystiray qabiil qoraal ah oo adeeg boosaha lagu maamulayaa caalamiga iyo ka maxalliga ka meel fiican u maraya insha Allah waa ma dhawaana wala soo saari doona insha Allah. Sikriye Nuux Ibrahim codka bariga Afrika gobolka Gabiley.